caqabadaha ugu badan waxay tahay maadaama qof family ahay guri leeyahay dadka qaar inay ku leeyihiin maxaa ku qasbay gurigaaga inaad ka soo baxdo ma iska joogtid waxaan awoodaada ma inaad gacantaada ku soo bisid dukaan iyo wararkas naaga tahay guriga lagu talagalay laakiin wax walba caqabado la arko waxay ka mid tahay guulahaaga bilaabanaya isbeddelka dhaqaale iyo midka amni ee caasimaddu naawishay muddooyinkii dambe waxa uu sababay kororka goobaha ganacsiga iyadoo dhalinyaradu ay la yimaadeen hal abuuro aad loo maadiyey kuwaas oo u badan kuwa ka yimid qurbaha balse geesta kale waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka waqtigooda oo dhan ku qaatay sida Filsan Shaaciye oo ganacsi ku bilowday internetka muqdisho ka hirgelisay sanadkii 2020 macaamiisha anigu adeego waxaa tahay waxa u badan horta qoysaska maadaama ay alaabtan isticmaalaan dadka qoysaska guryaha leh dadka kalena way isticmaalaan laakiin waa dad yar dadka arooska ah dadka xafladaha dhalashada dhiganayo dadka xafladaha maaragtay sanad guurada dhiganayo alaabaha soo kaleeto ana waxyaabaha qaaran haayo qaarna waan soo saaraa oo gacantayda ku soo diyaa qaarna dibadda ka keensada waxyaabaha ani gacantayda aan ku soo diyo waxa kamid ah alaabaha oo la nashqadeynayo kale sidoo kale frameeyada oo la nashqadeynayo maaragtay waxyaabaha abaalka sheeg design gareynaya dharka daahmanka iyo go'sreereedyadii wax la isku design gareeyo ibataanu eegno degmadeena maanta dadka dabiicadooda waxay u baahan tahay ka go'naansho iyo dhiirnaan in la hindiso ganacsi miro dhala waxaase lama horaan ah helidda taakula iyo garab istaaga si yoolka habeen badan oo sideeda oo kale ah ay u xaqiijiyaan riyooyinkooda